kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tegay oo hadahan oo kale aad ka daawataan Rogaal Media. Qodobada barnaamijka aad maanta ku daawan doontaan haddii eebaha awoodiisa la ogolaadana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saxiixay xeer dib u dhigaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dikretaanaya uu madaxweynuhu maanta saxiixay ku tilmaamay inay la micno tahay dastuurka oo la laalay. barnaamij looga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo oo ka dhacay magaalada Muqdisho. ciidamada Mareykanka oo duqeyn ka geystay degmada Saako. Imaaraadka oo keentay arrin hadalhayn ka abuurtay Pakistan iyadoo oo looga leeyahay in lagu taageero Israa'iil. iyo Joe Biden oo magacaabay xoghayihiisa waxbarashada. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan intii aynu ku wada jirna barnaamijkan, balse marka hore isagii oo faahfaahsan. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay xeer madaxweyne oo dib u dhigaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah. madaxweynaha ayaa taasi ku sababeeyay in la galay xilligii doorashada oo ay sii dhammaanayso muddo xileedka baarlamaanka tobnaad. muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad ayaa ku eg 27 bishan December ee 2020 oo ah axadda soo socota, taasi oo ka dhigan in baarlamaanka tobnaad uusan awood u yeelan doonin wax ka beddelka dastuurka. qodobka 136 ee dastuurka Soomaaliya ayaa dhigaya dib u eegista dastuurka uu dhammaystiro baarlamaanka isla markaana loo qaado afti, taasi oo aan lagu wada guuleysan intii uu jiray baarlamaanka tobnaad. waxaa mas'uuliyadda dhammaystiran dib u eegista dastuurka iyo afti u qaadista u gudbinaya baarlamaanka 11aad ee soo socda ee la dooran doono. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hoygiisa shir jiraayad ugu qabtay saxaafadda ayaa ku tilmaamay taageeridda madaxweyne Farmaajo ee wax ka beddelka ansixinta dastuurka uu dib u dhigaya aysan wax qaanuun iyo dastuur cuskanayn. Xasan Sheekh ayaa sheegay in tallaabadan uu qaaday madaxweynaha ay la mid tahay iyada oo dastuurka la laalay. waxa uu sheegay in shirka wadajirka ee labada aqal ee baarlamaanka ay ahayd inuu ka soo baxo dekreetada madaxweynaha uu maanta soo saaray. wax qaanuun iyo dastuur iyo awood madaxweyne ay cuskan tahay ma jirto. madaxweynuhu waxa uu mar kale dhinac maray dastuurka, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha xafiiskiisa shaqooyinka ka bilaaban karo waa xadidan yahay. shaqada ugu weyn xafiiskiisa ka bilaabataa waa magacaabidda ra'iisul wasaaraha. shaqo kale oo rasmi ah waa marka xaalad gooni ah jirto. madaxweynaha xaq uma lahan, sharci uma lahan inuu meesha ka bilaabo howsha dastuurka. waxaa looga qabanayaa dastuurka ayaa qoraya, waana sida tilmaaman in labada aqal ee baarlamaanka uu kulmo oo qaraar ka soo baxo. qaraarkaas intuu aqbalo madaxweynaha ayuu dekreeto ka soo saaro. madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa sheegay in tallaabadan uu maanta sameeyay madaxweyne Farmaajo ay kaligii-talisnimada dhismaheeda tahay, isla markaana aanan dalka loo celin karin dekreeto madaxweyne in lagu xukumo. dalkan ma waxaa loo celinayaa in dekreeto madaxweyne in lagu xukumo? tallaabada uu maanta sameeyay madaxweynaha waxay la micno tahay dastuurka oo la laalay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dikteernimada dhismadeeda ayuu dabaqa kale ku sii daray, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Farmaajo ayaa saxiixay xeer madaxweyne oo dib loogu dhigaya ansixinta dastuurka wax ka beddelkiisa iyadoo loo gudbiyay baarlamaanka 11aad, maadaama baarlamaanka tobnaad muddada xilhayntiisu ay sii dhammaanayso. si kastaba ha ahaatee, tallaabadan ayaa waxa ay mar kale sii gelinaysaa dalka xiisadaha siyaasadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyay u dhexeeyay madaxweyne Farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka. barnaamij looga soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhacay inta u dhexeysa isgoyska dabka iyo kan sayidka ee magaalada Muqdisho, iyadoo dadweynaha isugu soo baxayna ay wateen boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhigyo ka dhan ah madaxweyne Farmaajo. dadka isugu soo baxay oo haween iyo rag isugu jiray ayaa ku qaylinayay erayo ay ka mid yihiin dooni mayno kaligiis-talisnimo, doorasho xor iyo xalaal ah iyo erayo kale. qaar ka mid ah dadkii soo dibad baxay ee warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay diidan yihiin afduubka iyo handadaada, sidoo kalena ay rabaan doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu heshiisan yahay. mid ka mid ah haweenkii banaanbaxa oo qayb ka ahayd ayaa ka dalbatay madaxweyne Farmaajo inuu xilkaasi sharaf iyo nidaam uga dego oo u qabto doorasho xor iyo xalaal ah. sidoo kale waxay sheegeen in ay ka dhiidhinayaan inay dhacdo colaad dhiig u ku daato, sidaas darteed loo baahan yahay in doorasho heshiis lagu yahay la qabto. banaanbaxyo ayaa maalmihii la soo dhaafay si goosgoos ah ugu dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, kaasoo looga soo horjeeday madaxweyne Farmaajo. inta badan ciidamada amniga ayaa joojinaya banaanbaxa iyaga oo jidadkan xirayay.
dhinaca kale ciidamada booliska ayaa xiray qaar ka mid a dadkii dibadbaxa waday waxaana baraha bulshada la soo dhigayay sawirro dhalinyaro la saarayo gaadiidka ciidamada booliska. Taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in duqeyn ay ka geysteen 24 bishan Diseembar dhisma ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ku taal magaalada Sako ee gobolka Jubbada Dhexe. Qoraal ka soo baxay Africom ayaa lagu xusay in duqeyntan waxyeelo lagu gaarsiiyey xarun ay Al-Shabaab lahaayeen balse laguma xusin qoraalka in waxyeeladu ay soo gaartay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Waxaan qiimeynaynaa in waxyeello ay ka soo gaartay dad rayid ah duqeyntan oo sababtay in argagixisadu ay baqaan oo cagaha jabsadaan ayaa lagu yiri war qoraal ah. Hase yeeshee qoraalka ka soo baxay Africom ayaa lagu xusay in Al-Shabaab uu halis ku yahay dalka Soomaaliya, Kenya iyo wadamo kale. Dadaalada lagu dhantaalayo howlgallada cadowga sidoo kalena lagula soconayo cadaadis lagu saaro Al-Shabaab weli waa ay socdaan ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ee ay soo saartay Africom. Weerarka ayaa kusoo beegmaya xilli ciidamada Mareykanka ay bilaabeen in ay ka baxaan dalka Soomaaliya kadib markii uu madaxweynaha xilka kasii degaya uu amray in ay boorsooyinkooda ka xirxirtaan dalka Soomaaliya. Diblomaasiga ugu sarreeya Imaaraadka Carabta ayaa Isniintii si shaacsan u qirtay xayiraad aan sharaxaad laga bixin oo la saaray dadka dalkaasi kasoo booqanaya Bakistan, taasi oo hadalhayn badan ka abuurtay gudaha dalka Bakistan. Wakiilada dhinaca socdaalka ee gooya tikidhada ayaa sidoo kale sheegay in xayiraadan lagu beegsanayo in ka badan 10 dal oo kale oo muslimiin ah, iyadoo uu jiro tuhun ku saabsan in arrintani loo sameeyey Israa'iil darteed. Kadib kulan uu la yeeshay dhigiisa Bakistan ayaa wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Sheikh Cabdullaahi bin Zayed Al Nahyan waxa uu sheegay in dhowaan hakin ku meel gaar ahi lagu sameeyey soo saarista fiisaha sababo la xiriira COVID-19 sida ay warisay wakaaladda wararka Imaaraadka ee WAM. Ma uusan sharixin sababta loo hakiyey fiisaha horey loo bixiyey, taasi oo lama filaan ku noqotay dad badan oo doonayay inay soo galaan dalkaas. Fiisaha la hakiyey ayaa lagu beegsaday dalal ay ka mid yihiin Bakistan, Lebanon, Kenya, Iran, Syria, Afghanistan iyo Yemen. Waxaana arrintaasi timid iyadoo ay bilaabatay in ay dalkaasi soo galaan dalxiisayaal ka socda Israa'iil kadib xiriir dhex maray labada dal. Saciid Maxamed oo ka shaqeeya shirkadda socdaalka ee Arabian 90 Tours ee Dubai ayaa sheegay in heerka ogolaanshaha fiisaha qoysaska ka imaanaya dalka Bakistan ay sare u kacday toddobaadyadii lasoo dhaafay. Si kastaba waxa uu sheegay in fiisaha dadka dhalinyarada ah ee aan xaasaska lahayn aan loo ogolayn inay dalkaasi soo galaan, taasi oo sare u qaaday tuhun la xiriira go'aankan uu salka ku hayo arrimo amni ah oona loo yeelaya in Israa'iil ay ku soo badanayso dalka Imaaraadka Carabta. Ugu dambeyntii madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Connecticut Miguel Cordon u magacaabay inuu noqdo xogeyihiisa waxbarashada. Biden ayaa Cordon ku tilmaamay inuu yahay doode xooggan oo waxbarashada iskuulada dadweynaha kaasi oo hogaamin kara waxbarashada iyo halganka loogu jira waxbaridda ardayda iyadoo la ilaalinaya badqabka inta lagu jira aafada coronavirus. Biden oo ka hadlayay magaalada Wilmington ee gobolka laga soo doortay ee Delaware ayaa sheegay in taasi ay samayn karaan haddii iskuulada degmooyinka, bulshada iyo gobolladaba la siiyo wadiiqad cad oo lagu hagayo dhaqaalaha oo aan hadda ku jirin miisaaniyadooda. Waxa uu intaasi ku daray in si ammaan ah wax loo baro ardayda iyada oo la dhowraya badqabkooda ay u baahan tahay qof fahmi kara baahida loo qabo ka hortagga aafada si aysan u sii darin sinaan la'aanta hannaanka waxbarashada ee uu sababay COVID-19. Cordon oo 45 sano jir ah ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyay ee kasoo jeeda bulshada Latina kaasi oo noqda xogeyaha waxbarashada ee Mareykanka haddii ay ansixiyaan golaha sanadka ee Mareykanka. Sidoo kale Cordon ayaa loo magacaabay madaxa waxbarashada ee gobolka Connecticut bilo ka hor dilaacii aafada COVID-19 ee bishii March. Guud ahaan waxaa intaasi inooga eg barnaamijka toddobaadkii tagay oo aad ka daawanayseen Rogaal Media. Barnaamijka intii aynu ku guda jirnay waxaad ku daawateen qodobo xiiso badan. Tan intii aynu kulmi doono Jimcaha xiga sidaas iyo nabadgelyo.